السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحيو أما فرح سودو oo isku day su'aalaha inaad ka jawaabto. Website-yada aan isticmaalno sida Facebook iyo YouTube guud ahaan sidee u shaqeeyaan, gaar ahaan si qaybta back-end-ga sidee u shaqeysaa, sidee loo dhisaa, maxaa lagu dhisaa, baran karaa qaabka loo dhiso, waqti intee in laga ku baran karaa. Su'aalaha jawaabtooda hadaad hayso, maasha Allah cilmiga Allah ku barakeeyo, mutacallim ayaa tahay. Kadaadan hayn sidoo kale qof wanaagsan baa tahay inaan kaga jawaabi doona. Website-yadu waxay ka kooban yihiin saddex qaybood oo kala ah client side oo sidoo kale loo yaqaano front end, server side oo sidoo kale loo yaqaano back end, iyo database. qaybta back end iyo database kana badanaa waa la israaciyaa, laakiin imika saddex ayaan u kala qaybinaynaa oo saa ayaan u qaybinaynaa. haddii aan keeno tusaale nool oo ah sida ay u shaqeeyaan ama iskula shaqeeyaan saddexdan, faa'iido baan ka higaajiyay Faarax iyo Farxiyo waxay soo fureen Facebook-gooda. Faarax wuxuu doonayay inuu Facebook account-kiisa soo dhigo post, qoraal iyo sawir wata. qaybta kaliya ee Faarax iyo userska kale la midka ahba ay arki karaan waa qaybta client side-ka ama front end-ga. Faarax waxa kasta uu account-kiisa soo dhigo waxa lagu keedin doonaa database-ka. si markaa database-ka loogu keediyo, client side-ka iyo database-ka waxa u kala dabqaadaya u dhaxeeyo waxa weeyaan server side. server side-ku markaa wuxuu ku shaqeeyaa operation ama howlgal la yiraahdo CRUD operation oo loo soo gaabsaday create, read, update iyo delete. Faarax markuu taabto batoonka post-ga ah, server side-ku isagoo adeegsanayo CRUD operation gaar ahaan create ayuu xog cusub ku abuuri doonaa database-ka. wax yar kadib Faarax hadduu ku soo noqdo profile-kiisa, wuxuu arki doonaa post-ii uu soo dhigay daqiiqado ka hor oo profile-kiisa ugu sareeya. server side-ku markaas si xogta uu soo muujiyo oo Faarax iyo Faarax friendskiisaba xogtaasi uu tuso, wuxuu adeegsanayaa CRUD operation gaar ahaan read. Faarax wuxuu arkay in qoraalkii uu soo dhigay wax ka qaldan yihiin. wuxuu isku dayay inuu edit gareeyo, deetana wuxuu taabtay batoonka update. mar kale server side-ka isagoo adeegsanaya CRUD operation gaar ahaan update ayuu wax ka bedel ku sameyn doonaa xogtii hore ee taalay database-ka. qaabka waliba uu ku amray Faarax ayuu wax ka bedelkaasi ku sameyn doonaa. in yar kadib Farxiyo oo Facebook iska fiirfiirinaysa ayaa waxa aragtay post-gii Faarax. faallo ama comment ayaan ka soo bixisay. comment-gaasi sidii kii hore wuxuu mari doonaa CRUD operation create ayuu mari doonaa, xogta waxa lagu abuuri doonaa database-ka, kadibna read ayuu mari doontaa oo xogtii isla markiiba comment-ga ay bixisay waa loo soo celin doonaa, iyada ayaa arki doonta iyo dadka kaleba. Farxiyo haddii comment-ga istiraahdo comment-ga ma fiicna delete garee oo ay taabato batoonka delete, haddana server side-ka isagoo adeegsanaya howlgalkii ahaa CRUD gaar ahaan delete ayuu xogtii meesha ka saari doonaa. faahfaahintaasi iyo faalladaasi waxaan filayaa inaad si fiican u fahantay. su'aasha meesha taallaa waxay tahay sideen u dhisi karaa, maxaanse ku dhisi karaa. horta sideen u dhisi karaa muuqaalkan oo ah muuqaal gaaban laguma soo koobi karo, waa cilmi u baahan inaad waqti geliso. laakiin maxaan ku dhisi karaa waxa weeyaan waxa loo isticmaalaa saddexdaasi qaybood tiknoolajiyado kala duwan. haddii aan ku horeeyo client side-ka waxa lagu dhisaa HTML, CSS iyo JavaScript, xoogaa JavaScript. database-yadu waxay u kala baxaan laba nooc oo kala ah NoSQL ama NoSQL iyo SQL ama SQL. SQL databaseska waxa ugu caansan SQL Server iyo MySQL. Non-SQL-ka ama NoSQL-ka waxa ugu caansan MongoDB. qaybta server side-ka oo ah qaybta muuqaalkan ku saabsan yahay, haddii aan si faahfaahsan uga hadlo, server side-ka waxaa lagu dhisi karaa programming languages iyo framework-yo carrada iyo ciidda ka badan, yacni badan. halkan laguma soo koobi karo, laakiin waxaan soo qaadan doonaa saddexda aan isleeyahay fikir ahaanteeda way ugu mudan yihiin, ama adigu saddex unaan soo qaato. saddexdaasi siday u kala mudan yihiin haddaan u kala horeysiiyo. kaalinta saddexaad PHP waa programming language gebi ahaanba loo isticmaalo back-end web development-ga. PHP waxay leedahay frameworkyo badan oo loogu isticmaal badan yahay framework loo yaqaano Laravel. PHP dhanka security-ga markaan ka eegno, marka aad qorayso custom PHP code oo bilowga adiga aad ka soo bilaabayso, security-geedu waa weyn. laakiin marka aad adeegsanayso framework-yadeeda sida Laravel waa high security, oo sababtoo ah wuxuu leeyahay Laravel-ku easy to use ama modules maxay ku diyaarsan oo dhanka security-ga dhan walbaba ka caawinayo. haddaan eegno dhanka performance-ga ama waqtiga ku qabanayso hawsha PHP version-nadii hore high performance ma slow performance ayay ahayd, laakiin
updateski dambe ee PHP versionki 8 oo ah current versionka imika la isticmaalo waxaa lagu soo daray updates badan performancegeedana sidoo hore uu yara dhaamaa inkastoo aanay ahayn luqadda ugu wanaagsan dhanka performancega. PHP website-yada ku dhisan waxaa ka mid ah Facebook. Mark Zuckerberg 12 sano ka hor markuu Facebook sameynayay ama uu dhisayay wuxuu ku dhisay programming language kan loo yaqaano PHP sidoo kale waxaa adeegsadaa 70% ilaa 75% in ka badan website-yada caalamka oo dhan. Laakiin sanadahan dambe developerska ama software engineeradu waxay ka doorbidaan PHP programming languageska kale ee sida JavaScript iyo Python. kaalinta labaad Python waxaa loo adeegsadaa waxyaabo badan oo ay ka mid tahay artificial intelligence-ga in robotyada lagu programmiyo, data analysis-ga iyo waxyaabo kale badan oo ka mid yahay web development-ga. Python waxaa loo adeegsadaa framework-geeda loo yaqaano Django iyo sidoo kale framework loo yaqaano Flask. waa labada framework ee loogu adeegsiga badan yahay markay noqoto dhanka web development-ga Python. dhanka security-ga gaar ahaan framework-ga Django ama Django high security weeyaan sababtoo ah easy to use plugins iyo modules diyaarsan oo marka aad ku install garayso maxay ku sii diyaarsan ayuu leeyahay oo dhanka security-ga waxyaabo badan ka caawinayo. Python dhanka performance-ga markay noqoto iyo waqtiga hawsha ku qabanayso qaabka u qabanayso waxaa kaga horeysa PHP marka la barbar dhigo PHP waa ka horeysa iyo programming languageska kale sida JavaScript. Python waxaa adeegsada gaar ahaan framework-geeda Django waxaa ku dhisan ama website-yada ku dhisan waxaa ka mid ah YouTube iyo Instagram. guud ahaan Python waa programming language aad iyo aad cajiib u ah mustaqbal wanaagsanna leh waxyaabo badanna qabta shirkado badanna isticmaalaan isla markaana ah programming language leh features iyo waxyaabo badan oo cajiib ah oo dhan walba ku fiican. kaalinta koowaad ee barnaamijyada lagu develop gareeyo ama lagu dhiso server side-ka waxaa soo gelaysa JavaScript sidoo kale client side-kana waa lagu dhisaa server side-kana waa lagu dhisaa. markay noqoto web development-ga JavaScript waa programming language-ka loogu isticmaalka badan yahay. JavaScript waxay leedahay framework-yo iyo library-yo carrada iyo ciidaba ka badan yacni aad iyo aad u badan. markay noqoto server side-ka waxaa aad loo isticmaalaa Node.js iyo Next.js. JavaScript markaan ka hadlayno dhanka performance-ga waa programming language ugu horeeya dhanka performance-ga oo iyadu waxay adeegsataa ama koodkeedu wuxuu u shaqeeyaa habka loo yaqaano asynchronous halka luqadaha kale ay ku shaqeeyaan synchronous farqiga u dhaxeeyana haddaad programming-ka ku cusub tahay oo aadan aqoon waad baran doontaa waa topic aad maqli doonto inta ugu badan haddaad taqaanina waaba taqaanay. markay noqoto dhanka security-ga Node.js dhanka security-ga waxaa kaga wacan Django iyo Laravel. Node.js ma laha kood iyo waxyaabo diyaarsan oo aad isticmaalayso laakiin wuxuu leeyahay packages Node-ka uu leeyahay oo ah NPM ama Node Package Manager waxa la yiraahdo aad isticmaalayso ka laftiisa laga yaabo vulnerabilities badan inuu yeesho laakiin aad u baahan tahay inaad test badan iyo tijaabo badan aad mariso. su'aasha imikaas weydiinayso waxa weeyaan sideen ku baran karaa muddo inta in laga helo ugu qaadanaysa inaan barto. waxay ku xiran tahay horta barashada go'aanka adiga aad qaadato iyo waqtiga aad geliso. programming language-ku masa uma adka waad baran kartaa kaliya haddii aad waqti fiican geliso oo maalintii ugu yaraan kale 4 saacadood haddaad geliso waxa laga yaabaa inaad ku barato haddaad ka soo bilaabayso from zero to hero inaad ku noqoto waxay u baahan tahay sanad. general programming language oo dhan inaad concept fiican aad ka qaadato haddaad doonayso. haddii aad waqti intaa ka sii yar aad sii gelisanaa waxa weeyaan muddo intaa ka badan ay kugu qaadanaysaa haddaad 8 saacadood kale maalintii ama 6 saacadood computerka aad dul fadhido halka aad Facebook iyo waxyaabo kale waqti aad ku bixin haddaad ku bixiso waxa laga yaabaa inaad ku barato ilaa 8 bilood inta u dhaxaysa ilaa sanad inta u dhaxayso inaad markaad from zero aad ka soo bilowdo ilaa to hero. haddii programming language waxay ku bilaawnayeen oo aad doonayso inaad luqad barataana waxay kugu qaadan kartaa ilaa 3 bilood inaad framework cusub ama programming language cusub inaad barato kugu qaadanaysa 3 bilood marka ugu badato. faahfaahinta kooban ee ku saabsan web development-ga maanta intaasan kusoo koobayaa muuqaalka xigeentan